بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها يخدرينتا مدن إن نقل سعودة تيفيقا خرنكا سوماليات ومركلة إيا برنامج كنجي وريسي إيا ورقلين أو أنو إذن كسو قد بنو قبل كوهايو أو مقالة كولومبوس داوديال تضباط كان برنامج كنجا وريسي إيا ورقلين وحا أنو كسو قادنينا الرمالة حريرة دينا إسبورتيغا سومالي دا كنول نورد أمريكا غارهان قبل كوهايو إيا وليبا سيدا ay da'yarta Soomaaliyeed ee qurbaha ku koray ee uga qayb qaadanayaan horumarka dhinaca isboortiga oo qayb kala gedisan leh sanad walba gobolka Ohio waxa lagu qabtaa ciyaaraha isboortiga oo kala gedisan gaar ahaan kuwa kubadda cagta oo ay soo abaabulaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku taagay sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen garaadka dhalinyarada Soomaaliyeed si ay ula qabsadaan dadka fucood ah ee ku nool caalamka intiisa kale isla markaana ay u yeelan lahaayeen niyad ay ku hiigsadaan horumar caalami ah haddaba magaaladan Columbus Ohio oo ah magaalada labaad ee ugu Soomaalida badan dalka Mareykanka sanad walba ciyaaraha lagu qabto waxa soo abaabula dhalinyaro ayagu isugu jira kuwa ganacsato ah kuwa wax ka barta jaamacadaha iyo kollejyada gobolka iyo waliba dhalinyaro kale oo jecel kubadda cagta toddobaadkan waxaan barnaamijka ku wareysanaynaa mid ka mid ah dadka soo abaabula barnaamijkan dhinaca isboortiga isla markaasna ka mid ah kuwooda ugu firfircoon oo ku nool magaalada Columbus Ohio kana mid ah kuwa iyagu hoggaanka u haya arrimahan isboortiga Bashiir Geele oo ka mid ah guddiga isboortiga ee gobolkan Ohio waxa uu ka mid yahay dadka 14 sano ku soo guda jiray abaabulka la xiriira Columbus Indoor Cup oo ah barnaamijkaas ku tacaluqa ciyaaraha isla markaana lagu qabto magaalada Columbus Ohio Bashiir ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka si uu faahfaahin guud uga bixiyo bal taariikhda uu soo maray isboortiska gobolka Ohio marka hore si aan ku soo dhaweeyo Bashiir TV-ga qaranka Soomaaliyeed وما سنتها ديقو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهرينتي وحمات كلا الله سبحانه وتعالى إن حريست جود يمد جاره هنات بأمدي سأقول حريستي مركل بعدنا وحن ربع إن أمهد عليا ديقو تي في جارن كالصومالية دورنا هانتي هذه جارس كودية إن إسكو حيران بالشوين الصومالية كوكالونو لدون كجيسيس إن ده سيدا شيكتي حفلة وحفلة وحبة صوصعتي أو صوصعتي أفريقيا طبعا سنو هنا هانتي بلو جدي هرنا وحيك بلعبت لبدا كون مركي لمري يا وحيك بلعبتي إن إسكوي مادين بهوين تسبورتيكا إن نورث أمريكا مقالة تورنتو إسكوي مادين تاسو إجرتي باهي لإسكو قبو إن أمد الصوماليات كارهان بعض إسبورتيكا إن أسأركان وحال إسأركي جري مركا سنة كيبا مر أيال إسأركي جري marka talo waxa la soo jeediyaa in maaragtay sanadkiiba laba jeer la sarko dood ayaa marka bilaabatay meeshii lagu qaban lahaa iyo waqtiga la qaban lahaa doodii adiga wax badan ay socotay waxa marka la isku afgartay in la qabto waqtiga springka in la qabto tournament ama tartan la iskugu yimaadaan dhammaan bahweynta sportiga ee North America waxa dood kale marka ay sii gashay magaalada lagu qaban lahaa maadaama marka ay noqotay Ohio ay tahay magaalo u dhaxaysa bulshooyinka Soomaaliyeed magaalooyinka ay degan yihiin macnaha marka saas ku leeyahay waxa noogu fog magaalada Minnesota oo jirta 12 saacadood inta kaleeto waa 6 saac ama 8 saac taasa marka waxa la isku afgartay in lagu qabto magaalada Columbus run ahaantii anaguna waa soo dhaweynay aad ayaan u soo dhaweynay waxaan marka annaka laftigeeni aan ka doodnay sidii wixii hore la qaban jiray wax ka duwan aan u qaban lahayn waxaan isku afgaranay markaas inaan qabanno markaas waxa la qaban jiray kulligood outdoorka ama waxa la qeeyay ama garoonka banaanka markaasaan waxaan isku afgaranay inaan qabanno garoonka dadan xafladda baroniga lagu ciyaaro keesana ugu dambeysana run ahaantii sanadba sanadka ka sii dambeysay ka fiicnaaneysay marka aad ayaan ugu faraxsanahay muddo 14 sano ah waa waqti aad u dheer runtiina waxaad moodaa in magaalada Columbus oo Soomaali badan ay ku nool yihiin aysan ahayn wax fudud inaad qabataan say ku hesheen ama ba idin kugu suurta gashay in dhalinyaro badan oo kooxan noocaas oo kala ah ay soo baxaan mise noo sharaxi kartaa inta gobol ay ka kala yimaadaan
runtii dhammaan waxay ka kala yimaadaan gobolada ay degaan mujtamaca Soomaaliyeed ay ku badan yihiin ay ka mid tahay magaaladan ay ka mid tahay maaragtay magaalada Minnesota ay ka mid tahay magaalada Toronto ay ka mid tahay magaalada Seattle and Washington DC and Maine, Boston and Atlanta, Tennessee and macnaha magaalo walba oo maaragtay mujtamac Soomaaliyeed ay iskugu timaado waxaa ka yimaada tiimam sababta run ahaantii u yimaadaana ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed horta isdhaxgal ay sameeyaan maxaa yeelay Soomaalida mujtamacana Soomaaliyeed waxay iskugu timaado waa yartahay siyaasad haddaan ka hadalno siyaasadda waa lagu kala duwan yahay haddii diin hadda laga hadlo diintii laftigeeda lagu kala duwanaaday hadda haddii maaragtay business laga hadlo businesskii waxaa waaye qof walba wuxuu raadinayaa asaga wixii dantiisa alxamdulilah sportiga waxay noqotay waxa isku keena dhalinyarada Soomaaliyeed oo bara isdhaxgalka in maaragtay ay ka fiyoobaadaan waxyaalaha maaragtay hoosta noo dhigay marka laba waxba waa u sameynaa run ahaantii midda koowaad oo loo sameeyo muhiimadeeda ay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay markaas waqtigaas iyadoo la aasaasay ay deganaayeen xaafadaha macnaha magaalooyinka aan ugu fiicnayn in dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay ka madax banaanaato waxaas oo dhibaatada u keeni kara sida gangska sida waxaan loo yaqaan drugska macnaha waxyaalahaas oo kale maxaa yeelay qofka dhalinyarada ah markuu uu yeesho wax uu xiiseeyo markuu yeesho waxay keentaa waxyaalihii kaleeto oo xumaanta ku dhici lahaa in waxaan xasuustaa last year in aad sanadkii soo dhaafay aad isku keenteen rugcada dhinaca isboortiga ah oo rag hore oo u ciyaari jiray qarankii Soomaaliya oo kale ay ka imaadeen gobolada qaar iyo Canada aad ka keenteen barnaamijkaas bal asaga dad xogaa wax yar dib ugu laabato run ahaantii dad badan dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda especially meeshan ka ciyaarta maysan soo arag ciyaartooy Soomaaliyeed ama maaragtay nasiib uma yeelan inay arkaan kuwa ay ku daydaan naadiyaashii Soomaaliyeed dad ay ku daydaan taariikhda Soomaaliyeed ee sportiga saysan u dhumin maadaama aysan jirin marka wax buugaaga oo qoran oo dhalinyarada intay buugaagtaas ama u tagaan ama maaragtay website-yada galaan oo ay ka akhristaan waxaa noo suurta gashay marka inaan helno rugcadaagii hore ee Soomaaliyeed ee sportiga ku lahaa magac iyo maamuus inay yimaadaan oo ay baraan taariikhda Soomaaliya inay wadan jira ay ahaan jirtay in sportigeedu uu dhisnaan jiro sporti aad loo jecel yahay ahayd in maaragtay macnaha taariikhda Soomaaliyeed inaysan dhumin rugcadaagaas run ahaantii dad waxa ku jira Soomaaliya maaragtay run ahaantii ka ahaa sida hadda Messi ama Ronaldo ama maaragtay ciyaartooyda waaweyn ee adduunka ama Europeanka hadda ay ka yihiin adduunka marka in gaabkaas taariikhda Soomaaliyeed aysan dhumin oo aan hayno maadaama shakhsiyaadka aan haynin laakiin aanan haynin wax buugaaga oo qoran wax qoraal oo qoran oo taariikh dhiirigelin ayaad uga dan lahayd absolutely ha waa hagaag marka loo fiiriyo gobolada waxa ka yimaada dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo la isdhihi karo qaarkood waxay ku koreen ama ku dhasheenba Mareykanka se ay u dhacdaan dhalinyarada ama aad isfahansiisaan ama aad u dareensiisaan inay noqon karaan jiilal u ciyaari doona qarankii Soomaaliyeed oo kaleeto midda kaleeto marka aad dhinaca guulaha kaleeto aad fiiriso kale yaad isdhihi kartaa guulaha ugu badan waa ay la tagaan gobolada qaarkood wallahi ugu horeyntii horta dhalinta yar ee meeshan ku kortay bilowgii waxaan xasuustaa ciyaaraha markaan bilaabaynay in dhaqankoodu uu ka duwanaa dhaqanka Soomaaliga waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo waxa imaan jirtay ilkaha bira ugu jiraan oo birahan macnaha ma aha ilkaha biraha celiya ma ahan kuwan ay gashtaan nimankan heesaha raabka qaada alxamdulilah laakiin isdhaxgalkan wuxuu keenay in dhalinyaradu uu ku soo celiyo dhaqankii Soomaaliyeed oo macnaha ay u labistaan sida Soomaalida af Soomaaliga maaragtay ay bartaan ay isku dayaan ayaga dhaxdooda laftigooda inay isxiriiriyaan oo isla hadlaan oo isku imaadaan dhinaca guulashana magaalada Columbus ee Ohio waxay haysataa 4 koob Minnesota waxay haysataa 5 koob marka reer Minnesota ayaa ilaa hadda waxay dheerihiin reer Ohio hal koob Minnesota idin hogaaminaysa ha sidoo kale waxa way Tennessee oo koob haysata Washington DC oo koob haysata macnaha saasay u kala waxaysan yihiin waa hagaag runtii
waa barnaamij aad u qiimo badan oo marka la fiiriyo dhinaca daa'irta Soomaaliyeed iyo waliba dadkina sportiska aad u abaabulaya waxa idinka fududeynaya bulshaduna runtii maalmaha la qabanayo aad ay uga soo qayb galaan hadda sanadkan waxaa jira inaad qaban doontaan xilliga xagaaga oo kale ciyaarihii koobka 14aad mise 15aad inaad qaban doontaan yaa ka soo qayb galaya gobolada imaanaya wallahi gobolada imaanaya waa gobolada sanadihii hore imaan jiray Minnesota sidaan hore u sheegnay maaragtay Ohio Toronto Seattle DC Maine Boston Atlanta Tennessee iyo I think waxaan ka tagayaa kolba u maleynaya marka state walba oo Soomaalida ay ku badanta way ka kala yimaadaan oo way isku yimaadaan waana run ahaantii hadda meesha kaliya ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay xiisayso jecel yihiin inay yimaadaan maxaa yeelay waxa yimaada tiimamka ugu fiican oo North America oo Soomaaliya Soomaalidana waxay jeceshahay iyada dhexdeeda competition inay maaragtay koox walba ama gobol walba oo gobolka kale ama kooxda kale uu tuso in maaragtay ciyaar ahaan dhinaca sportiga asaga uu ka fiican yahay marka loolankaas ayaa ka jira waa run ahaantii waa arrin aad u xiiso badan oo macnaha run ahaantii annaka laftigeennana waxay noo tahay meel aan ku aragno dhammaan bahweynta sportiga ee North America hal maalin 3 maalin gudahood inaan ku wada aragno kulligood marka arrin run ahaantii annaka laftigeennana farax gelisa ay ka laftigooda imaashahoodana xiiso gelisa wahagaag dhawaan waxaad qabateen qorituurka ugu dambeeyay iyo soo kooxaha isugu aadi doonaan marka ciyaarta ugu horeysa ayaa ku guuleystay qorituurka waxaan u kala bixinay 4 group ayaan u kala bixinay 4taas group oo hogaaminayeen 4 kooxood oo ugu fiicnaa rekordkooda xagga maalaha raysmada markii loo fiiriyo 3 sano ee ugu dambeysay 4taas kooxood oo ay kamid ahayd kooxdii last year qaaday koobka qaaday ka imaatay magaalada Columbus iyo 2 Minnesota iyo 2 Columbus 4taas ayaa marka waxay u tahay groupka iyada hogaaminaya insha Allah marka 3 bari kolba ciyaaraha furitaanka waxay noqonaysaa groupka ugu horeeya ee group A inuu noo furi doono insha Allah bidnillaahi alkariim markii ay bilaabato ciyaaraha wahagaag daawadayaal anagoo wali uga jirna barnaamijkanagii waraysi iyo wargelin gudaha bal aan idin tuso qadar muuqaal ah oo ku saabsan habkii uu qorituurka uga dhacay magaaladan Columbus Ohio ayadoo qorituurkana uu yahay mid kala qaban doono sanadkan aan ku jirno ee 2014. Thirdly and lastly, Russ instilled the importance of sports and athletics with me. When it comes to sports and athletics, I did not naturally play soccer. I was more of a swimmer, so I did not really start playing soccer until I joined a club team about a year ago. To date, Russ has sponsored, of course, the Columbus Stars, as well as the soccer tournament we're here today to talk about. Russ has also sponsored the Ohio United team and makes donations to both Somalian basketball leagues and 2 Somalian soccer tournaments as well. There's a couple things I learned about soccer recently because, well, naturally I haven't played it. The first thing is I learned that I cannot figure out for the life of me why they call American football football. I just don't get it. I don't know where that came from at all, so I apologize for that because I just can't figure it out. The second thing is when playing with Somalian soccer players, I learned that you're trained from birth. I learned that doing the ball dribbling and control and all that stuff, it's never going to happen for me. I think when you guys start walking, it's the first thing you do is start dribbling that ball around. And the third thing, and probably the most important, is I've learned that I will never be able to catch any of the Somalian soccer players. If there's a ball and it's right there, I'm never going to get to it before he does. So I've decided my cardio is terrible compared to everybody else on the field. So. Well, finally and lastly, you know, I'm proud and honored to say that Russ is my father. So here is my leader and my mentor, and of course my father, Russ Floyd. Now, I'm getting a lot older, and I apologize, and I forget, and I keep forgetting, and I came here and I sat down here tonight, and I was trying to remember what happened last year and what I said and what I did, and
for the life of me, I cannot remember it. I need you guys to help me. Now, the team that won last year, where are they from? Ohio. Where? Ohio. I'm sorry, I can't hear you. Ohio. Where? Ohio. Thank you. If you were part of that team that won, I would ask you to stand up so we can applaud you and give you the true that I got to give it to an Ohio team rather than giving it out continuously to Minnesota. I just have a few things I'd like to share with you tonight, and I hope you'll listen to me and take what I say to heart. And I don't mean to offend anyone when I say these things, but I feel very personal about this tournament because we have sponsored it for so many years. And my name was part of that tournament, and now my family name, I think, is part of the tournament through the Flickinger Legal Group with my son. And also, a lot of you know, I also have, in keeping in the Somali tradition, I have a 9-month-old son also. So, with that being said, I truly have a kinship with this tournament because I am giving my family name as sponsor, and this is probably the only real event that I ever do that for. And so I've got some things I'd like to share with you. One of the things that I sat down and I thought about, and actually I've been thinking about this since the last tournament, was what exactly does it take to what we call be a man? And when I mean be a man, for the females in the group, I don't mean this gender specific. I mean, what does it take to be a good person, whether you're a male or whether you're a female? But in the terms I grew up with in the middle of Pennsylvania, in a very rural background, it was called being a man. And that kind of holds for me now that I have to learn all over again how to train and teach my new son. We all have different things that we play in life. We have different roles. We may be a father or mother. We may be a husband. We may be a wife. We may be a teacher. We may be an athlete. We may be a scholar. We may be an elder. We may be all of those things. But what we probably are going to be at some time is a role model. Now, when I sit down and I look at the role models our kids have today, I get scared. I look at professional athletes out on the basketball court or on the field, and it worries me when I see what they do. I also see what they do off the field when they're arrested for numerous different things, for spousal abuse, for guns, for murder, and it really makes me sit back and think, what do the kids of today have to look up to? And what I think they have to look up to is all of you. We are all role models for all of the youth of today, and we have to take that very seriously. Mr. Filicher respect and honor. Responsibility. ujeedadii laga lahaa inay tahay in number 1 waxa la socotaan 22 sano u dambeysay dalkeeni hooyo waa burbursanaa ummadeennuna waxay ku kala fiirsanayeen inaan helno dhacdo isu kaana keenta muujiso midnimadeena jiritaankeena macnaha ka dambeeyaan uu yahay qarannimadii Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed waa inteena isu timid iyo in lamida marka inay jirto Soomaali wax la yiraahdo inaan ku faano dhaqankeena inaan ku faano culture-keena iyo ujeedo kale oo muhiimka ah dadka dhalinyarada in ay waqtigooda meel qiimo leh ay geliyaan. Good evening, ladies and gentlemen. I'm standing here before you all to thank the gentlemen who made this tournament available for us, and also to thank Mr. Russell for always helping the Somali community. This competition not only allows us to play very good soccer, but also allows us to play a competitive soccer. Therefore, I cannot wait for this Soccer Zero tournament to kick off, and I'll be looking forward to having a blast on and off the field. Thank you. Before I leave, I want to
wanted to tell you something for the team who won the tournament last year. TMT is coming for you. The technicality of the draw. The reason why we have technicalities for this draw is because there are several teams from same states that cannot be in the same group. For instance, there are 4 teams from Columbus, Ohio. Those 4 teams cannot be in the same group. Same thing goes for the 4 teams that are from Minnesota. Before I go further with the technicalities, I want to tell you the teams that will be taking place of the Columbus Indoor Soccer Cup 2014. From Columbus, Ohio, we have FC Hilat, the defending champions. We have Columbus Stars FC. We have FC Samba, also known as TMT. And we have FC Eagles. From Minnesota, we have Somali Tigers, Twin City Stars of Minnesota, McNimmel of Minnesota, and we have a newcomer this year, Helgen FC. Don't pay attention to the screen, I'm just... Alright, so let's start all over. Pot 1, Hila FC, Columbus Stars, Twin City Stars, and McNimmel. Pot 2, Somali Tigers, Eagles FC, Washington DC, and Samba FC. Pot 3, Washington, Seattle, Maine, Boston, and Atlanta Horsehead. Finally, Pot 4, Helgen FC from Minnesota, Tennessee, Mogadishu FC, Dallas, and Toronto FC. Alright, now we're going to start the draw process, and to start with Pot 1, I'd like to welcome Mr. Russell Flickinger to the podium, or stage. Alright, Mr. Russell is going to pick a team from Pot 1, and that team will automatically be A1. And so forth and so on. He'll pick another team, and that team will be B1, C1, and D1. Alright, having said that, now we'll start with Pot 1. First team that will lead Group A. Twin City Stars of Minnesota. Twin City Stars of Minnesota will lead Group A1. Now the second team that will lead Group B. Team that will lead Group B, McNimmel FC of Minnesota. McNimmel FC of Minnesota, B1. Next team that will lead Group C. Columbus Stars of Columbus. Columbus Stars will lead Group C. Last but not least, for Pot 1, the remaining team that will lead Group D. FC Hilat from Ohio. That concludes Pot 1. Now, the technicality of the draw really kicks in right now. Because, as you guys can all see, we have 4 teams. Twin City Stars will lead Group A, McNimmel will lead Group B, Columbus Stars C, FC Hilat D. What that means for the remaining teams from Ohio and Minnesota, there cannot be a team from Minnesota in Group A or Group B. Therefore, the 2 remaining teams from Minnesota will automatically be drawn into C or Group D. Same goes for the teams from Ohio. Teams from Ohio cannot be drawn in A or B. Therefore, in the technicality term of the draw, they'll automatically be drawn in Group A or B. Now, to start Pot B, or Pot 2, sorry, I'd like to welcome Justin to help us do the draw. And before you start, we have somebody else to help. We have Abdulrazak that will also help out. Abdulrazak.
being drawn from Pot 2. FC Samba of Ohio. وهاجاك بشير قرطورك وداوني waxaad u jeedaa in qaabka u dhacay waxa qaab lagu wada qanacsan yahay aad u qurux badan runtii marka aad fiiriso jaaliyada kale sida idin dhiirigelisa jaaliyadu maanta jaaliyada wali xogaa waxa naga haysa dhibaato dad badan oo Soomaaliyeed oo sportiga jecel way jiraan laakiin waxaad moodaa wali in dhibaatada xagga siyaasadda ay haysato oo macnaha xagga dhaqaalaha xagga aqliga xagga xoogga xagga tabarta badana boqolkiiba 80 oo boqolkiiba 90 lagu bixiyo xagga siyaasadda dhinaca sportigana waxaad moodaa xogaa in maaragtay wali dadkii Soomaaliyeed uu gaab ka jiro alxamdulillah sidii hore ma waagii hore waxa xasuustaa magaaladan dadka dhalinyarada sportiga markii la dhaho in macnaha magac gooni ay lahaayeen oo niman ciyaar suuqyada loo arki jiray laakiin hadda alxamdulillah laakiin wali ma na gaarin meeshii oo wali waxa naga tabar badan dhinaca siyaasadda ayaa naga tabar badan وهاجاك dhinaca siyaasadda waxaan filayaa in dhinacyo badan ay saameyn ku leedahay laakiin waxaan rajeynayaa inaad ka gudbi doontaan Bashiir markaan u soo laabano guddigiina sportska Columbus hawsha aad qabataan waa hawl aad u baaxad weyn runtii marka la fiirinayo waana hawl marka si loo fiiriyo wax ka badbaadin karta jiilasha Soomaaliyeed sportiga waxa lagu tilmaamaa inuu qayb ka yahay wax daayarta bedeli kara haday ahaan lahayd dhinacyada siyaasadda haday ahaan lahayd dhinaca maaragtay inay qabiilnimada ka gudbaan oo ay u gudbaan dad midowsan oo qabiil ah ku shaqeynin haday noqon lahayd dad dagaalada ka gudbo kaleeto waxa dhacda marka badanaa in sportska dadka soo abaabulo iskhilaafan ilaa hadda intaas oo la qabanayeen wax khilaaf ma aanan maqlinin maxaad sidii ka dhantaas soo ku gaarteen alxamdulillah horta waa runta oo saa sheegtay hadii Soomaalida khilaafka meel walba ka galay mar hadduu masaajiyada uu khilaaf ka galayna waxa garan kartaa mujtamaca Soomaaliyeed meel walba dhinaca khilaafka inuu ka maaragtay uu ka taabtay waxyaalaha laakiin aniga aan isleeyahay waa ku guuleysateen inay ka mid tahay in aan markaan fadhiisano isku afgaranay xafladda aan dhigayno inay wax walba ka weynaato shakhsi inay ka weynaato koox inay ka weynaato group inay ka weynaato waxa la qabanayana ee loo qabanayo dhalinyarada Soomaaliyeed marka hadda taariikhda marka dib u fiirisid oo 14 sano oo la soo qabanayo waxa iska ilaalinaa waxa kamida magaca gudoomiye inaan sameysano maxaa yeelay waxaan aragnay Soomaalidii intii gudoomiye intay la wada baxeen haddana ma aragtay gudoomiyihii iyo booskii la isku wada qabsaday markaas ka bacdina qof walba uu sameystay asaga gudoomiye u gaara iyo magac kaleeto u gaaro markaas asaga isku sharaxay marka alxamdulillah annaka waxaan niri as a team waxaan u qabano individualka iyo maaragtay qofka shakhsiyadda iyo asaga waxa uu leeyahay in banaanka intii la dhigo xafladani ay noqoto koobkan dhalinyarada iskugu imaanaysa sidii looga shaqeyn lahaa wax qurux badan environment fiican competition wax leh oo horumar leh in ay maaragtay aan ku gaarsiino alxamdulillah na maaragtay sanadka ka sii dambaysa waa ka sii fiicnaanayna oo ka sii maaragtay hagaagsanaanayna وهاجاك dhinaca tababarada marka la fiiriyo yaad ka caawiyo tababarada dhalinyarada Soomaaliyeed tababara wallahi dhalinyarada Soomaaliyeed waxa bartaa tababara maaragtay dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo waqtigooda qaaliga ah gelisa dhinaca sportiga marka aan fiirino waxyaalaha ugu weyn oo xogaa dhibka naga haysto oo uusan korin waxa kamid ah tababarayaasha Soomaalida ee ku dhaqan wadanka North America in aysan sameeynin maaragtay raadinin aqoon kororsi inaysan sameeynin waxaan sportigana wuxuu u baahan yahay aqoon kororsi laakiin run ahaantii way dadaalaan waxay ku dadaalaan in maaragtay ay maaragtay waqtigooda qaaliga ah inay u horaan in dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ahaan lahayd kuwa yaryarka ah oo under 14 ka hooseeya haddii ay ahaan lahayd maaragtay kuwa dhaxdhaxaad oo loo yaqaano dhalinyarada yaryar haddii ahaan lahayd dad kale waa weyn oo isku hayo marka waxaan rajeynaynaa marka waxyaalaha hadda aan ka shaqeynayna inay tahay inaan horay u marino run ahaantii aqoonta tababarada maxaa yeelay aqoonta tababarada waxay caawinaysaa in ay dhisto tiirarka dhalinyarada yar oo soo kacay taasna ay maaragtay ay keento inay ka qayb galaan oo wax la qaybsadaan wadankan dadka aan ku noolnahay America ee weyn waxa jira dad jaaliyadaha kala ka socda oo aad ayaguna sidaan oo kale u dhisan oo sportska dhinaciisa gurbiyo iyo kooxale sidaan oo kaleeto marna ma isku daydin inta la kulantaan aad tirahdaan bal aan sameysano wax unadaho aan ku mideysanahay oo isla markaana aan ku helno tababar caalami ah
والله رون أهانتي وحياة أدين كسر الصومالي أهان مسكود إذا أنت برا عالمي أنا أوهشان عيارتوي ذي نية هايس وحياة بدن وأسكود ديني دبعتي جرتا أيا وحيتها ودن كان معناها نلعب سبورتي ولي بكاهيست ما جرتو وح يونيتيا أو هل أمر اللي إسكوي معدان سبورتي نورث أمريكا إيه الصومالي ده تاس أيا مركا وحي كانت isolated إن قفل بقوني وحور راديو تي مركا حد اللي مقوليسن حد وحن كودا دحجرنا مركا إنا سمينو سبورتي قاسو راديو ريسورس كودا كان لقيه لي كرو أو هرمرين كرتا سبورتي haddii ahaan lahayd xagga maaragtay tababarada haddii ahaan lahayd xagga dhalinyarada haddii ahaan lahayd maaragtay xagga garoomada lagu ciyaaro facility-ga waxa arkaysaa hadda stadiada ama maaragtay gobolada Soomaalida ay degan yihiin waxaad ku arkaysaa in ay ku yir yihiin Soomaalida ayagoo ku badan gaar ahaan magaaladan iyo magaalada Minnesota garoomo haddana ay leeyihiin in ay ku yir yihiin dad macnaha community oo yarna ay garoomo badan iska haystaan waxaasna waxa keenay macnaha waxa waay individualistic oo qof walba dhinac wax u raadinayay hadda laakiin insha Allah billahi alkarim waxaan ka shaqeynayno unity in waxaan ku raadino oo magaca Soomaaliyeed oo aan u keeno oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee yaryar ee hadda soo kacaysa ay ka fiicnaadaan kuwii horena adoo fursadaada maanta Somali National TV ku sii ka faa'iideysanaya maxaad jeclaan lahayd inaad u gudbiso dhalinyarada iyo jaaliyadda adoo kala hadlaya dhinaca haddii ahaan lahayd in dhalinyaradu ay ku soo biiraan sportiska iyo dhinaca jaaliyadda wixii fariinaha aad u gudbin lahayd run ahaantii dhalinyarada sportiga markii la dhaho qofka dhalinyarada waxyaalo badan ayuu ka caawiyaa waxaa ka mid ah qofka inuu ka caawiyo inuu horta asaga shakhsi ahaan u barto inuu dadka wax la qaybsan karo maxaa yeelay marka aad 20 qof oo tiim aad ku jirtid 20kaas qof waxay ku maraysaa dimuqraadiyad waxa 20kaas qof badankood waxa ay rabaan inaad raacdid tan ku xigto waxay ku baraysaa in qofka aadan ku baran qabiil ama aadan ku baran maaragtay garab ama waxyaalaha dhumiyay ee ku baran laakiin aad ku baratid qofkan waa qof sporti waa qof bunuun ciyaara bunuunigiisa akeesh waxa ila ninka duwaha kaaga ciyaaray iyo ninka tareega kaaga ciyaaray uma fiirinaysa qabiil walaalka haduu duwaha uusan ka ciyaari karin waxa ka jeceshahay ninka kaleeto ee duwaha ku fiican ee ciyaari kara inuu meeshaas ku ciyaaro marka dhalinyarada saas ay sportiga ku fiican tahay وانا عافيمات أورون أهانتي جركة عافيمات كأيو في عين ومدة الصوماليين وحن ماركتي عن مرور بقى عن سكو كانوا حواي وماركتي رون أهانتي مرور بقى عن تجمد أفكار ومدة الصوماليين وعن رحنا وكحضرنا أفكارنا مرور بقى كمدير ومدة الصوماليين إن ماركتي رون أهانتي سيدا عن كجرنا عن بدلنا محايا لي وح عن كجرنا هدانا بدل سيدا هدا عن كجرنا ولي كجرينا وحيالا بدنا على تراجري لكن waxaan u bedel dhaqankiyaana bedel maaragtay wixii anaka aan believe gareysnay gudaha nooga jira ayaana bedel marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku waxaynayaa sportiga in wax lagu bedelo hadda markaa fiirisan madaxweynihii hore ee dhintay South Africa Nelson Mandela wadankaas cadaanka iyo madowga u kala safnaa waxyaalaha isku keenay waxa kamid ah sportiga kamid marka sportiga ummadda Soomaaliyeed isku keeni kara xoog in la saaro resource la geliyo dhalinyarada maaragtay la geeyo saasayaan kula talin jaaliyada wahay daawadayaal inta siyaanu ku soo afmeereynaa barnaamijkanagii waraysi iyo wargelin barnaamijkan oo idinkaga imaanaya Columbus Ohio waxa idin soo gudbinaya anigoo ah deeqaashire deeqasoona barnaamijkana dhinaca farsamada iyo kaamirada waxa iga caawinaya Cabdinasiib tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij midkan la mid ah waxaan idinkaga tageynaa dhamaanteen sidaas iyo nabadgelyo Bashiir aad ayaad u mahadsantahay waa mahadsantahay thank you